kulankeennan oo kulankii koobaad oo in muddo u diyaar garoobaynay wada tashi badan ka sameeynay laamaha kala duwan ee dawladda hoose inuu ku dhaco jawi aanan mudnayn inaan ku kulanno in meesha aan fadhinaay tahay meel kulul cid kasta oo baylaha iyo culays saarna aanu ka soo kaxaynay hay dareemayso culayskii iyo hawshii ay haysay ay soo baylahaysay culays ka badan dareemaysa taa aad iyo aad baan uga xumahay run ahaantii taayna waxay ka turjumaysaa halka ay taalo mas'uuliyadeedu xaqiiqatan waxa weeye ma jecel inaanu meelo badan ku daaho ma jecel meelo badan aan ku habsaamo mar haddii aan hoolkan ku kulmaynaa xaaladiisu uu yahay xaaladaan imika aanan cid iga warramaynin hay tahay meel u muuqata xafiiska aan fadhiisto hay tahay meel annagu toos aan u maamulay cid kale ayna maamulin waxa weeye markaa xaaladaydu sidaa tahay Zaylac maxaan ka qaban karnaa Zaylac ka dawladda hoos ahaan wax intee leeg baa lanaga filayaa inaan wax ka qaban karno kow horta bal anagu goobaha shaqo ee aan tooska u maamulo inaan anagu wax ka bedelo taas waan ballan qaadayaa biidnillaahi kariim inaanan hoolkan maanta dabadeed loogu kulmin isagoo marxaladda maanta ku jirna iyo tu ka liidata ama tu lamid inaan lagu kulmin haddaan awood weyno waan iska xidhaynaa insha Allah waxa weeye magaalada Zaylac markaanu ka tashanayna ama arrinkan oo daroosaynay inaanu kulanno waxaan filayaa waxyaabaha la nagala hadli doonaa inay ka duwan tahay waxyaabaha maanta laga hadlay waayo waxa jirta maslaxa la wada leeyahay maamulka dadka shacabka mas'uuliyiinta kala duwan ilaamaha dawladda taasi waxa weeye magaalada aanu ku noolahay sida ay u ekaanayso aan wada leenahay ninba gaar uma waxaan u baahanahay inaanu ka midowno Zaylac jiritaankeega Zaylac muuqashadeeda malaha tiifiyada reer Zaylac ma daawadaan waxaad maqlaysaa ma hadda degmooyinka ugu daada yar oo sheeganaya kaalinta ay Soomaaliland ka soo qaateen guusha waxa la yiraahdaa way geesiyaal badan oo maanta hadii talaabo la qaaday lagu guuleysto macalku guriyaha jooga sheeganaya inay mataqaana ay soo guuleysteen oo guusha qayb ka hayaan waana wax fiican in guusha lagu wada faano sida darteed baa loo yiri guusha way geesiyaal badan tahay Soomaaliland bilow maraaxil badan bay soo martay waa laga yaabaa meelo badan naga dadaal badnaa inay jiraan oo waxa la yiraahdaa meelaha ugu mudan in aanu u aqaanay inay mudan yihiin shirkina badaynta Boorama shirkii Soomaaliland laga dhawaaqay burco waxa la mid ah ka oo aan dadka kale mataqaanaa degmooyinka aan tilmaamay joogay aynan maqal oo inan de noo qirayn ilaa yoon inagu aanu sheegano Zaylacna kaalintii ka jirtay Soomaaliland laga yaabo Hargeysa waa caasimadii degmooyin kale oo badan oo aan waaga abuurnay ama jirinba ama anta laba muuqata qaadina inay yiraahdaan saameynta ban Soomaaliland kulan waxa weeye hooyadu markay ilmaha dhasho ilmuhu laba hooyo un buleey waxa la yiraahdaa hooyada dhashay iyo hooyada nuujis imika dama jirto hooyo nuujis inta badan oo mid walba hooyadii baa ku filanay ama haddii hooyadii ka dhimato waxa la umur radaaca waxa la jirto hooyada naaska nuujis waxa weeye xilli ana burcana cashuur lagu bixinayn aan Hargeysana cashuur lagu bixinayn xaaladii jiray amni Booramana cashuur lagu bixinayn markii Soomaaliland burca laga dhawaaqay isla maalintaaba warqadaha la qorayay lacagta lagu bixinay Zaylac cashuurta laga qaaday cashuurtii ugu horeysay ee Soomaaliland lagu habayay ee Soomaaliland madaxtooyada shidaalkeega lagu bixinayay Zaylac bay ka baxaysay marka intiina joogtaana maqla inta maqana gaarsiiya meediana Soomaaliland aanu marino ummu min ar-ridaa'a Soomaaliland waa Zaylac waa hooyadii nuujisay ee hadayna Zaylac laga anqarinin Soomaaliland ayna jirteen waa Zaylac waan ka xumahay inaanu maanta joogno 30 sano dabadeed Zaylac 30 sano dabadeed ayna Soomaaliland wax badan ku soo celin macnaha ma aha dawladda Soomaaliland Zaylac way hilmaansan tahay ma waxa hilmaansan Zaylac dadka jooga waxa laga yaabaa xafiiska aan fadhiyo goluhu marka arrin laga gorfaynayo waxa la soo qaadanay 20 tuulo degmada Zaylac waxaan jeclaan lahaa inay 20 ka arrimood 10 kamid Zaylac ka hadlayaan laakiin nasiib wanaag mid ka hadlaysa Zaylac ma laha hadday ka hadlayso ana xafiiskaygan ka hadlaya inaan kala waxa wasaaradda kala jooga xafiiskiisu ka hadlaya wax kale oo wasaaradda kamid dawladda kamid laan kale ka hadlaysa
laakiin balaniya waan isla garanno magaalada saylac sideen wuxuu uga bedeli karnaa nolol ahaan iyo muuqaal ahaanba anigu waxaan qabaa qof kasta oo saylac ku dhaqani hadduu ka jeeb roonaado dadka ku dhaqan degmada saylac inteeda kale annaguna ka maamul ahaan ugu hiilino waxay noqonaysaa saylac meel loo soo hirto bay noqonaysaa meel loo soo hirto bay noqonaysaa haddaba in saylac loo soo hirto aan ka dhignaay waxay u baahan tahay inay taladu inaga naga timaado ma filaynin inaanu ka isku canaanano ama aan isku sheegno inaanu dayr dugsi iyo dayr dhakhtar dhisno aad baan uga xumaa waayo annagu miisaaniyadda aan maamullo Khalid baan saaka ka wada hadlaynay waxaan kula war Khalidow boardka miisaaniyadda halka dibadda ku soo dhiji waan dareemayna dhaliilo badan naga imanayaan marka la dhajiyo oo la yiraahdo maayirkuna inta oo milyan buu kharash gareeyaa sanadkii nabadgelyadiisa dhaqdhaqaaqiisa ku kharash gareeyaa baahida kale halkaana lacag ka yar baa lagu qabtaa in la yiraahdo waan filayaa inay timaado laakiin waan bareerayaa in la dhaliilay maaha in aniga wax la dhimayo waa in la taabto xaqiiqada waxaan ballan qaadayaa oo arki doontaan miisaaniyadda lagu dhajin doono maayirka ku qoran in 20% ugu yaraan inaan horumarinta magaalada saylac kaga qayb qaato oo laga jaro lacagta hirka anigu aan dhaqdhaqaaqa nabadgelyada waxa kaga shaqeynayo anigu halkaan doonayaan iska dabare oo biyaana ku darsade inaanu 20% ku bixiyo horumarinta magaalada saylac qaybta labaad ee arinkan dalxiiska iyo waxa iyo meelaha asaarta qadiimiga waxa laga bedela ahna waxaan iyada ballan qaadaya waa kuwa golihii fadhiyo ay waddu iyaga gacantooda ku jirtay mashruuc kasta oo ku salaysan maayirka in meeshiisa wax laga bedelo inaan anigu laga leexiyo oo loo leexiyo meel umada maslaxa u leh umada manfac ugu jirta aniga gurigayga la bilo meel baahida bulshada ah oo waliba dhaqaale soo kordhinaysa waadi ku badiyay waxa weeye dawladda maamulka dawladda hoose degmada saylac waxaan ugu niminay golaha oo miisaaniyadii sanadkii naga horeeyay la ansixiyay ah 10 mashruuc oo celcelis ahaan noqonaya min $50,000 ba taala xafiis ma jiro haba yaraatay hal mashruuc oo $50 ku soo celinaya dawladda hoose degmada saylac sanadkii waa $500,000 oo aan haba yaraatay $50 bishii aan anaga dib noogu soo celinay reer saylac waxa u baahannahay oo tashigiina aan damacsanayn oo daaran yahay inaad qiimaysaan oo isla fahanno in $500,000 ee mashaariicda ahi ay soo celiyaan sanadkii ugu yaraan $50,000 boqolkiiba 10 soo celiyaan oo magaalada dib u gasho tusaalahan in la dhiso suuq looga soo adeeg doonto waad aragteen dadka Djibouti joogay Hargeysa badeecad u doontaan badeecada customka lagu cashuurayo waa laga daba tagaa wajaale iyo Hargeysa laga soo iibsadaa taraagita leeg baa la maraa lana soo maraa waynaynu ka shaqeynaa haddaynu dhamaanteen u midoobi weynayd aragtida caafimaadka qabta dawladda hoose inay culays ku saaraan in la abuuro suuqyo lagu ganacsado wax soo saar baan u leenahay kalluun baan leenahay waxa ayaan daraa in kalluunkeena nin dal kale ka soo gudbay meel dheer iyo meel dhow meeshu dooniba haadee isagoo qoran local aw kalluumaysto inaka kalluumaysta heeraysa ila leeyahay dhiiri gal halku kalluunka u iibgeyn meel uu iibgeeyo ma laha arrintaasna waa arrin u baahan tashigeena inay miradhal ka noqoto oo go'aana ka soo baxaan anagu waxaan nahay wakiiladii dawladda waxaan mar labaadna wakiiladii shacabka anigu haddaanu kursiga fadhiyo oo meeyarkii ahay waxa laga yaabaa inta badan go'aanada aan fuliyo iyo talooyinkaygu waxay u badan yihiin dhinaca dawladda dhab ahaanta laakiin waxa fadhiya niman golaha ah waa kuwa iyaga mas'uuliyadda aan iskaga riixaya waxa weeye reer saylacow wixii baahiyaad ah ee wasaaradaha laamaha kala duwan ee dawladda iyo hay'adaha khuseeya soo diyaariya noo keena anigu haddaan wax ka qaban waayo waynu goluhu isagoo idinkeedii kaashanaya anigu odhan maayo war kamarada halayga daayo waayo yootanka waxba ii dhimaya odhan maaye sida qayrkiin u gorgortantaan taas waan ballan qaadaya dacaraday ka qadhaadha waan laqaya laakiin idinka timaado idinkoo midaysan idinka timaado ikhwaani nimanka xildhibaanada ahna waa nimanka mar kasta halka haysta mayeerada oo culayska ugu badan ku haya iyagana waxaan ka codsanaya waar waxaad nagu cusleynaysaan ha noqdaan wax bulshada maslaxa u leh wax bulshada manfac u leh waxa weeye arrinka waxbarashada daraad arrinka gabadha ay tiri aniga ay macallimiinta mushaar siin mayno waayo annagu 100%
lacagta miisaaniyadda degmada saylac lagu maamulo oo 100 laamood oo kala duwan loo jajabiyo nadaafadii amnigii mishaarkii diski maxay loo jajabiyo lacag marka 10 lacagteeda la eego 10 jeer ka badan iyo wasaaradda waxbarashadu maamusha kaliya sektorka waxbarashada kaliya 10 jeer laab miisaaniyadeeda ay maamulaan 30 sano ee Soomaaliland jirtay waay ay hel dheer ugu soo dari waayeen maxaa qabaana nu lahayn ma Soomaaliland baan ka mid ahayn sababtaan u yiri wasaaradda waxbarashadu haday iyadu shaqadeedii baylahada wixii ku aadanayd ay nala sheer garan weydo oo waxaan qabanaya iyo waxaan qabanayna iyo waxay qabanayaan wada socon waayaan sabab anagu lacag u bixina jiri mayso baan sabab aanu bixina jiri mayso in iskuul la dhiso macalinkiina anaga la nagu canantahay waa culays anaga waxaanu ka fikirayna ee la naga raba waxay waa adeegyada bulshada inaanu qashinka ka gurno alxamdulillah rabbil alamin maanta biyuhu waxaan joogaa anagu saylaco booyada alciid buu ma filaanki toqoshi laga soo dhaami jir waliba biyo qaraar oo markaad cabtaan caloosha ugu xanuunayso Allah barakeeyo Xuseen ile waka maanta shaawar iyo biyo macaan lagu meedhanayo dawladda hoose waxa in loo tiriyaa oo inay wax ka qabata in leyrka oo la yiraahdo leyrkaas qaaliya wax laga qabto qashinka magaalada Saylac laga qabto guriyaha magaalada Saylac gasha 95 waa jingade waxa laga bedelo oo sida khadar sheegay dawladda hoose hadhisto dhul guriya dan yarta oo lagu kareyn karo $50 oo lagu kareyn karo $100 laga yaabaa inaanu $500,000 sanadkii mashaariic gelino hadaanu $250,000 gelino 30 guri in dhalinyarada in walba guri helayo fiican kira jaban iska bixinayo laakiin hadii aad inagu nagu canaanataan maxaa dugsi heblaaya deer looga dhisi waayay annagu halkeen ka keenayna lacagta marka waxaan qirayaa baahiyaad baahsan baa jira laakiin baahi walba cid lahayd baan siinay annagu waxaan ku darayno yeermada kadib wixii iyaga ka taaroonada waan ka baynaa oo kama dhigna wixii wasaaradii lahayd dayacda annagu waan iska riixaynaa ma laakiin doorka nagaga aadan intaan ka qaban karnaa qabanayna idinkuna waxaad ogaataan baylahadu halka iyaga maaha sartu meel bay ka qudunsantahay meesha aan isla fahanno inagoo midaysan wax ka doonno annagu dhiig joojin baan leeyahay dhiig joojintana waan hagar baxaynaa maanta laga bilaabo yeynaanu ku doodin ama yeynaanu ka wada hadlin hawl ninkii lahaa hagraday magaalada Saylac hortaya waxa laga bilaabay dhirayn mashruuc baan hadda wadnaa mashruuca waxa weeye mashruuc la yiraahdo bilicda magaalooyinka Saylac baan ka bilaabaynaa in lagu beero ugu yaraan 5,000 oo geed hadba sanad waxaan ka beernaba in la naqshadeeyo oo wadooyinkan iyo waxaan banaan la furo in meelahan biyuhu ka soo galayaan laga buuxiyo in qashinka si hagarbaxa looga guro waan gurnaa imika laakiin maaha halkii loo baahnaa wali ma gaadhin in qashinka si hagarbaxa looga guro magaalada idinka reer Saylac waxa la idinka rabaa go'aan ka duwan ama jid ka duwan jidkan hadda socono maaha kii liibaanta lagu gaaray ama magaaladu ku muuqanaysa ma waxaan sameeynaynaa toddobaadkii hal maalin oo bulshadu xafiiska la kulmi karto oo cid kale oo shaqaalaha dawladda hoose cid kale hay'ad aan qaabilay waxaan filayaa inay hagarasho jirto bulshada iyo maamulka dhexdooda inuu baylaha badan jirto baylahada balse aanu xalilo oo iskula xamaano dawladii hoose iyo waxa naga qaldan inaa toddobaadkiiba hal maalin Khalid Bahyaliiski ma xasuustay marka maalinta ay ahayd aad iitimaadaan oo tashano wasaaradda walba xamano cid wal meel wal wax baylaha ka jirta ba isla xamano anaguna xalkii doon insha Allah si wada jira anaga iyagu lahayo arrinka uu ka dhawaajiyay Saleebaan horta waa baylaha jirta waa arrinkan sababay wasaaradda waxbarashada arrinka waxbarashada maanta dhulta macallimiinta uga hadlayay waa la iska imanay dhagaxyo ba meel lagu rogay waa laga dhaqaaqaya ciiduma meel laga calaamadinay waa la dhaqaaqaya anagu waxaan ballan qaadayna Saleebaan oo ka xafiisahan hay'ad kalluumaysiyo oo ay timiday oo ayna wasaaradda la socon oo inay iskaashto la socon ugu qaabiliba maayba hadday suuqa wax ka qorqortaan in badan meel badan oo joogin oo diga farar dhuumantiin ba jirtaa la soo wargaliyo markaa aan ka talaabo qaadayna inaguna qaybtiina qaata oo nimanka igala shaqeeya anaguna wax ballan qaadaya arrin kalluumaysan kuma hadli karo aqoon badeedna ma lihi xog badan bada kama hayo wasaaradda kalluumaysiga markay timaado iskaashada kalluumaysiga loo yeeray noqon ninkan aydan la soconin anagu qaabil ma laakiin nigu hay badanin oo hadii aad 100 iskaashada kalluumaysi noqotaan waxa laga yaabaa dhalish halka ka timaada aniga wala leeyahay ballantayda idinka daba furay idinkuna taa wada socod kala haada waan badiyay walaalahay waxaan rabaa Saylac qaybtay ka muuqanayso aynu ka midoobaynay bal aanu ka bilowno waxa weeye balaynu gudiyo dhisno koow 4 gudi 5 gudi walaga aqoon badan yahay magaalada inta ay ka kooban tahay gudiyo qumanaan isla dhisno
dabadeed guddiga waxaan aad u danaynayaa guddida horumarinta magaalooyinka ama guddida bilicda magaalooyinka lacagta ay ku shaqeynaysaa intaanu miisaaniyad u hela miisaaniyadda la gelinayo ee meesha hirka la gelinayo waa sidaan ballan qaadayo 20% xafiiskayga lacagta ku shaqeeya laga jaraya uma baahna miisaaniyadda sanadka soo socota in lagu daro lacag loo raadiye haddaanu isla qaadana bisha 9aad bilowgeega lacagta ka khaaliday isaga soo naqshadaynaya maamulkii maaliyadda khadar baa nagala socdaan u malayn xogayuhu jooga hadday iyagu de habradaan mooyaan anigu waan hagar baxaya waa laxan leeyahay lacagta harkayga halka madaxayga laga saaro ha lagu soo qoro howlgalkii maayirka lagu soo qoro anana saxeexay insha Allah arintaana u soo dhiga nuglaada u soo gacan fudayda ummad marka liibaanteeda la doonayo ummad halka laga fiirsadaayo waa ubaxa soo koraya kow adduunyada marka xagga adduunyada laga eego ubaxa soo koraya sida uu yahay baa laga eega waan dareemayaa dugsigeenu meesha uu yahay dugsigeenu sida uu yahay waan dareemayaa ubadkeenu say noqonayaan waan dareemayaa marka wala garan kara dugsigu siduu yahay ubadku waxa ka soo baxay wala garanaya goobta qaybta kale ee mustaqbalkooda dunawiga iyo masaalixdooda diiniga waxa laga eega masaajida walow aanan ahayn dadka inta badan magaaladan ama waqti badan joogay oo masaajida xoog badan oo dheeraada ka hayay in kastoo aan ahayn haddana waxa muuqata baylaha badan masaajidana way dayacan yihiin ama dad yaraan ha noqoto ama daran yaa ka muuqata ummadu meesha Ilaahay ku caabuda cawlan tahayna waxaad ogaataan hantidu doonay haystaa in axwaashoodu dhan cawlaanayso aan ka nuurno haweeno magaalada xagga masaajida aynu ka nuurno xagga madaarista wayniga ka hadlay hadda waxbarashada aad uga hadlay wayniga xagga caafimaadka ka hadlay waxa weeye ilmahan waxbarashada la raadinayay caafimaad la raadinayay aslan marka hore ku soo dhasho nidaam diini oo quman madrasada ka soo bilaabo hooyo miskiidka ku xidhan ha dhasho aaba miskiidka ku xidhan ha dhasho sunnihi ku soo barbaaro ilmaha waxa weeyna hadda maragu soo qaadanaya magaalada Boorama la yiraahdo intaan ka aqaano dugsiyadu intooda badan waa madaaris umawiya noqoto alaqsa noqoto ilmuhu laga tunaad ku dhameynaya ilmihii oo ah ana diinta waxba ugu laabnayn jaamacada durduru ku dhaafaya marka halka gaari meeyna bal hadda aan bilowno in madrasadeenu ubadku shaqeeyaan oo loodan macaamadu u dhigtay macaamadu ay noqonin macaamada aanu ka soo bilowno aniga laga bilaabana ku xidhnaana masaajida aynu ku xidhnaano arrinka fiiroweyn oo gaanki ka hadlayay de waxa laga yaabaa waxay la mid tahay xaaladdan saylac ka jirta anigu ma rabo wax saylac xaaladda saylac dhaafsan maanta inaanu ka hadlo meel aan duulaanka ku nahay waxa weeye laga bilaabo low yacado ashacado ceelgaal dhulkaas oo dhan anoo maamul u wada haddana magaalada saylac markaanu ka hadlayno xaaladdu inay ku ekaato magaalada saylac in kastoo fiiroweyn lafteedu ka mid tahay magaalada saylac ka mid tahay baahida saylac qabta un baa iyadna gaadhay waxay noo ballana intii halka fadhida dalnimada tekniga farsamada hawsha wareejin in la qaban qaabiyo dhisida gudiyo gudi kastana maalin aan siiyo hadii la toddobaadkan gudi kasta maalin aan dhisno istardaarno aanu talaabo quman qaadno nimanyo rag iyo dumarba ha laga badheero magaalada saylac inaan sidan ka bedelo aniga la igu qiimeyn maayo waxaan ka qabtay meelo badan oo garanayo sida xariirada iyo meelo badan ay ka mid tahay waxaan ka qabtay la igu qiimeyn maayo laakiin waxa la igu qiimeynaya halka aan fadhiistay xafiisku uu yahay waxaan ka qabanay baa la igu qiimeynaya waxaan ka qabanay ayaa la igu qiimeynaya waxaan idin ballan qaadayaa inaan ka hagar baxo inaan magaalada saylac sida maanta si u dhaano inna waxaan idin ka fadhiyaa inta ka filayaa inaad ballan qaadaan oo aad ka hagar baxdaan magaalada saylac inaan soo ka bedelo haddaad inagu hagrataan anigu allahumma ballaqtu bayga tahay idinkana mas'uuliyadii baad igu soo wareegtay biidnillah waan ka baxay salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh وعلى أحمد جيري علي الكنترول ورقة دقمدة